maanta waxaa farxad noo ah inaan daahfurno imtixaankii fasalka 12aad ee guud ahaan dalka Soomaaliya maanta ka bilowday si gaar ah Koonfur Galbeed Soomaaliya sida faahfaahinta hadda aad ka maqleyseen imtixaankan dowladda Koonfur Galbeed waxaa uga qayb galeysay 5158 arday kuwaas oo si guud ahaan imtixaanka maanta u wada fariistay waxaan u rajaynaynaa biidinillaahi tacaala dhammaantooda inuu imtixaanka Ilaahay u fududeeyo ayna ka galaan kaalimaha ugu horeeya natiijada ay mustaqbalkooda ay rabaan iyo riyada ay rabaan inay ka rumeeyaan sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed ciidamada amniga ah gaar ahaan kuwa booliska oo runtii shaqo wanaagsan qabtay oo imtixaankan xaqiijiyay in ardayda goob walba ay joogaan loogu geeyo guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya degmooyinka iyo deegaanadeedaba sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah oo iyadana xaqiijisay kaalinteedana ka qaadatay in imtixaankan la wada gaarsiiyo deegaanada dowladda Koonfur Galbeed sanad dugsiyeedkan 2023-2024 maanta waa maalin kale oo taariikhi ah oo guul u leh dhalinyarada dowladda Koonfur Galbeed gabdho iyo wiilalba waxaan leenahay dadaalkii aad soo hayseen 4 sano hadda ugu dambeeyay ayaad maanta ka mirar dhalinaysaan insha Allah tacaala ka dowlad goboleed ahaan anigoo ka wakiila guud ahaan baahda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed waxaan idin rajaynaynaa horumar guul barwaaqo iyo bashbash in imtixaankan noogu bilowdo nooguna soo dhamaado haddii Alla idmo waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii runtii dadaal badan geliyay ardaydan muddada sanadaha fara badan inay imtixaankan maanta ay soo gaaraan ay u fariistaan dalka horumar fara badan uu sameeynaya waxa lagu tartamayana waa aqoonta waxaan kula talinayaa shacabka meel walba ay joogaan inay aadaan iskuulaadka waxbarashada lagu dadaalo waqti la siiyo maxay ahayd waa mustaqbalka kaliya maanta ardayda horumar u horseedi kara inay la tartamaan jiilka kale oo facoodana runtii u suurtagelin kara ka dowlad goboleed ahaan madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ahmiyad gaar ah siiyay ardayda iyo bahda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed waad ka warqabtaan shaqooyin fara badan ayaa laga soo qabtay wasaaraddan ayadoo wacyigelin fara badan la sameeyay insha Allah tacaala maanta waa furitaanka imtixaanka waxaan rajaynaynaa imtixaankan maanta noo bilowday inuu si wanaagsan Ilaahay noogu dhameeyo nabad ah dhammaan ardayda imtixaanka maanta u fariisatay ee gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Baay gobolka Bakool waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar iyo natiijo fiican inay ka helaan imtixaankan insha Allah tacaala imtixaanka uu noo furan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.